ee dugsiyada sare ee u fariistay imtixaankii ay wasaaradda waxbarashada qaaday bishii Meey ee sanadkan. Weli lama soo dejin natiijada imtixaankii ay galeen. Qof kastase waxa uu filayaa inay darajadiisu aad u wanaagsanaato. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya tan iyo markii ay dib u bilowday qaadista imtixaanaadka midaysan ee dalka, waxay ardaydu bilaabeen inay ku tartamaan kaalmaha hore si ay u helaan waxbarasho sare oo dibadda ah. hase ahaatee Shabeelle oo la kulantay ardaydii kaalmaha koowaad ka galay imtixaanaadkii dugsiyada sare ee sanadihii 2019, 2020 iyo 2021 ayaa heshay macluumaad musuq ah oo ku saabsan maaraynta deeqaha waxbarasho ee soo mara wasaaradda waxbarashada. Luqmaan Maxamed Nuur waxa uu sanadkii 2019 kaalinta koowaad ka galay imtixaankii midaysnaa ee dawladda ay si midaysan u qaadaysay, kaasi oo noqday nambarka ugu horeeya ee ardayda imtixaanka dalka markaasi gashay. sidoo kale Cawaale Axmed sanadkii 2021 ayuu isna kaalinta koowaad ee dalka ka galay imtixaankii dawladda ay qaadaysay. magacyada ardayda ugu sareysay 10 ugu sareysay iyo dugsiyada ay ka socdaan in natiijada heleen waxay u qormaysaa sidan soo socota. Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed oo ka soo baxay dugsiga Al-Fajr wuxuu helay 95.43. macluumaadka ardayda 10 kaalin ee ugu sareysa imtixaanka kaalinta koowaad ee sanad dugsiyeedka 2020-2021 guud ahaan imtixaanka qaranka waxa kaalinta koowaad galay Cawaale Axmed aw Cali Barre oo dugsigiisu yahay waa beri Gaalkacyo kuna yaala Galmudug, wuxuu keenay 95.43%. Luqmaan Maxamed Nuur waa ardaygii kaalinta koowaad u galay dugsiyada sare ee sanadkii 2019. waxa uu ka baxay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Faraj oo ku yaala degmada Yaaqshi. ku dhawaad 3 sano wax fariina oo wanaagsan uguma aysan imaan wasaaradda waxbarashada, wuxuuna dib u dhacaasi saameyn ku yeeshay mustaqbalkiisa maadaama ardaydii dugsiyada sare ee uu kaalinta koowaad u galay ay xilligan gabagabo u tahay waxbarashadoodii jaamacadda. nasiib xumo taas ma aysan suuro gelin oo cagtigeeda ayaa dhacday in ardayda xuquuqdooda aysan helin saddexdii sano waxbarashada ugu dambeysay 19 oo aniga Luqmaan inaan number 1 ii galo aan galo alla ii suuro geliyay 2020 oo walaalkay Sid Cumar asna yani oo number 1 soo galay iyo 2021 oo walaalkay Cawaale asna oo number 1 uu ka soo galay. dhammaanteen ma jiro qof si rasmi ah oo dhameystiran xuquuqdii uu ku lahaa wasaaradda waxbarashada ka helay, taasoo muujinayso cadaalad darrada iyo heerka musuqmaasuq ee baahsan ee ka dhex jira wasaaradda waxbarashada. Sayid Cumar oo haatan xaalad caafimaad ugu maqan dalka Turkiga, isna waa ardaygii kaalinta koowaad dugsiyada sare u galay imtixaankii ay dawladda qaaday sanadkii 2020. waxa uu dhameeyay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Jaabir bin Xayaan Muqdisho. si lamida wuxuu naawilayaa in waxbarasho dibadeed oo lacag la'aan uu helo, balse sida muuqata isna wuxuu qaaday wadadii kuwii kale. balaaneegno muuqaal ay Shabeelle ka duubtay sanadkii uu kaalinta galay iyo dareenkiisa siduu ahaa. walahi horta waxaa jiri karo arday iga dadaal badan iyo arday والله وانا ددالay ilaahina waa tala saaranay qaasatan habeenadii oo kaleeto waqtiyada dambe duco iyo wax akhrisba waanu ku jiray. Cawaale oo Axmed Cali wuxuu waxbarashadiisii dugsiga sare ku soo qaatay iskuulka Waaberi ee magaalada Gaalkacyo. wuxuu kaalinta koowaad u galay dhammaan ardaydii dugsiyada sare ee dalka sanadkii 2021. waxa uu ka mid yahay 3daas arday ee dhibanaha u noqday nidaamka ku salaysan xatooyada iyo eexda ee dalkeena ka jira. waxaan ahaa ardaygii kaalinta koowaad ka galay imtixaanka dawladda Soomaaliya qaaday sanadkii ugu dambeeyay 2021. dabcan sidii loo yahay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay shaacaysaa ardayda ugu sareysa kaalmaha gasha
bacdaydina waxay shaacaysaa in ardadaasi ay leeyihiin scholarship ama waxbarasho dibadda ah oo waddankay rabaan ah maadaama ay dadaal badan ay sameeyeen oo intaasoo kun oo arday ay kaalmaha sare ka galeen nasiib xumo waxaa dhacday in wasaaradda waxbarashada sanadihii isku xigay 19 iyo 20 iyo 21diiba aysan wasaaradda waxbarashadu scholarshipka ay u ballan qaaday ardadaas aysan u oofinin saddexdii arday ee kaalmaha koowaad kala galay saddexdii sano ee isxigay inaysan weli helin dhiirigelintii ay xaqa ugu lahaayeen dowladooda waxay caddaynaysaa heerka aadka u sarreeya ee uu gaarsiisan yahay musuqmaasuqa ka jira wasaaradda waxbarashada gaar ahaan waaxda ku shaqada leh minxooyinka shabeelle si ay wax badan uga ogaato arrintan waxay xidhiir telefoon la samaysay wasaaradda waxaan wacnay agaasimaha guud maxamed caabi xasan balse wicitaanadeennii kama uusan jawaabin innagoo dareensan in weli mas-uuliyad naga saaran tahay dheelitirnaanta warkan aan baahinayno waxaannu fariin qoraal agaasimaha wasaaradda waxbarashada ugu dirnay bartiisa whatsappka waa uu akhriyey dabcan sida ay gelin ardaygaas waxaa xigay sanad dugsiyeedkii 19 ardayga la yiraahdo Sayyid Umar Cabdiraxmaan Walaad asagana 2 sano ayuu sugayay deeqdiisa waxbarasho ilaa hadda gacan kuma hayo iyo ardayga ugu dambeeyay Cawaale Axmed Aw Cali oo imtixaanka qaranka sanad dugsiyeedkii 2021 kaalinta koowaad ka galay heer qaran saddexda arday mid kastaba dhowr iyo 30,000 oo arday ayuu kaalinta koowaad oo ka galay waxaa dareemi kartaa ardayda noocaas oo kale inay mudan yihiin dhiirigelin gaar ah in munaasabado qaran oo waaweyn loo sameeyo sidoo kale aqoon-yahano ka shaqeeya xarumaha waxbarashada dalka oo aan la kulannay ayaa inoo sheegay inay ka walacsan yihiin mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barta shilinka laga qaado waalidiinta maadaama ay u jeedaan waxyaabo badan oo qaladaad ku ah horumarka waxbarashada dalka kuwaasi oo ay sameynayaan dad wax ku